iyadoo lagu jiro xagaa horaantii oo jawigu aad u kul yahay xeebaha badda cas oo dhan ayaa saaka subaxii hore guud ahaanba gobolka saaxil waxaa ka bilaabantay qaadashada kaararka codbixinta ee doorashooyinka soo socda ee Somaliland sida doorashada madaxtooyada ta baarlamaanka inta golayaasha deegaanka saraakiisha sare ee komishinka qaranka Somaliland ee ku sugan magaalada Berbera ayaana saaka kormeeray 20 goobood ee ay ka bilaabantay kaar qaadashada iyagoo ay weelinayaan saraakiil sare oo ka socotay xisbiyada kala duwan 14 casha ah 20 goobood ee Berbera kama wada soconayso kaar bixintu waxay ka soconi doontaa meelo aanu astaynay aanu soo sheegi doono oo aan ka koobaynaa 20 goobood marka hadda ayaa fursad fiican la haystaayo nafas la haystaa ee waxaad yeelaysaa 7 casho aad uga faa'iideysta goobo hadda idin badan yihiin haddaan dadku aanay iszaxmadeynayn kulkuna waa badan yahay marka ku dadaala reer Berberow inaad ka faa'iideystaan 7 casho hore ee 20 goobood 20 kabadii ay shaqeeyeen waxaanu soo kormeeray oo hadda aanu soo dhameystiray goobihii ku yiilay 20 goobood ahaa ee magaalada gudaheeda Berbera caasimadda gobolka Saaxil hawshiina si fiican bay uga socotaa meelaha qaar kood dadku kuyugu kuma badna meelaha qaar koodna kuyugu waa ku badan yahay taasi waa wax iska caadi ah dadkuna inta badan maalmaha ugu horeeya way soo buuqaan laakiin dadka waxaan u sheegaynaa meel kasta ay joogaanba ee gobolkan Saaxil waxaan u sheegaynaa inay sabir yeeshaan oo dulqaad yeeshaan xaraaradda qorraxduna waa iska yar kulushahayo xoogaa marar baa dadku codkii 80 kun ahaa ee aad ugu dadaashan dadka reer Saaxil tihiin annagoo ku hadlaynaa afkii xisbiyada qaranka oo halkaan aanu ku marayno 3 xisbi qaran wakiiladoodiiba waanu joognaa siibaanu xisbi xaakimkii kulmiyaanahay waxaan si gaar ah u sheegayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay door muhiim ah ka qaataan sida ay u soo saar lahayn cidii ay jeclaayeen baan uga mahadnaqaynaa anoo ku hadlay afka xisbiga wicid hawsha qaran ee gacanta ku hayaan ee ka bilaabantay iyo shacabka ay soo galeen si fiican u socdo runtii aad baan uga mahadnaqayaa xubnaha komishinka sidoo kale taageerayaasha xisbiga wicid ee gobolka Saaxil waxaan ku boorinayaa inay kaarka qaataan oo kana socda gudida anshaxa ee komishinka doorashooyinka afkoodina ku hadlaya maantana aan joogo gobolka Saaxil si wanaagsan oo qurux badan ayay uga bilaabmatay diiwaangelintii kaar qaybinteedii gobolka Saaxil guud ahaan ilaa hadda intii aan soo marnay iyo goobaha aanu ka war hayno si qurux badan oo bilaa carqalada oo qurux badan oo dadku ay u dhibirsan yihiin sharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland iyo wafti balaaran oo hogaaminayo oo saraakiisha ugu sareysay xisbigaasi ayaa iyaguna dhankooda saaka waxa ay kormeer ku tageen goobaha kala duwan ee laga qaadanayay kaararka magaalada Berbera iyo waliba kuwa durugsan ee dhinaca miyiga saraakiishan sare ee hogaaminayay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa dhankooda saxaafadda la hadlay soo maray oo ka tirsan magaalada Berbera gudaheeda oo ay ka bilaabantay bixinta kaararku hawshu si wanaagsan bay u socotay goobaha aanu soo maray waxaan u mahadnaqaynaa shaqaalaha komishinka iyo komishinka guudba waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada ammaanka waxaan u mahadnaqaynaa shacbiga oo iyaguna si nidaam leh u qaadanayay kaararka waxaan rajaynaynaa maalmaha dambena inay sidaas leeg noogu socdaan hadda waxaanu joognaa degmada Wadajir Sayladii oo 2 goobood oo Wadajir ah halkan ka socdaan dhammaan gudoomiyaasha goobaha aan soo wareysanay si wanaagsan bay hawshu u socotay wax dhibaato ma sheegin insha Allah guud ahaan waxaan rajaynayaa inaan wax dhibaato inoo iman doonin marka laga soo bilaabo xeebaha Sanaag Saaxil iyo Awdalba shacbiga mar labaad waxaan ku gaabinayaa in muwaadin kasta aanu seegin inuu qaato kaarkiisa si aan u seegin codkiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gobolkan Saaxil inuu ahaa gobolkii ugu korarka badnaa xagga nisbada ilaahayna waxaan ka baryaynaa tiradii isdiiwaangelisay ee 80 kun ku dhaweyd intii inu dhiganta ay kaarka qaataan kan kala hadlaya shacabka reer Saaxil meel kasta joogaanba waxaan rajaynayaa insha Allah bidmillaahi kariim sida inoogu socoto diiwaangelintii inaynu ka qayb qaadano oo kaarkeena codbixiyaha aynu qaadano si xuduudeena u muujino gobol ahaan Saaxil ahaan waxaan rajaynayaa reer Saaxil meel kasta ku nool yihiinba in kaarkeena qaadataan soo muujisaan cid xor iyo xalaal ah ugu Yaasiin Jaamacali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada xeebta Berbera.